madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi uga furmay shirka Golaha Amniga qaranka waxaana shirkan ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku xigeenkiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo xubnaha ka socda qaramada midoobay AMISOM shirkan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha ka mid yihiin amniga iyo sidii ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay la wareegi lahaayeen amniga iyo xasilinta wadanka madaxweynaha dalka oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu si rasmi u furay Shirka Golaha Amniga qaranka of all Somali's territories to the legitimate state and its people. The Somali National Army and our partners, our AMISOM, have done significant work to return territories from Al-Shabaab across Somalia. We must and we will continue to recapture the remaining territories from these evil forces. qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya waxa ay si kulul uga hadleen arrimaha ku saabsan amniga iyo sida laga yeeli karo waxaana sidoo kale ka mid ah dadka halkaas ka hadlay Michael Keatin xogayaha qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya in line with your priorities and recommitting to providing coherent support to Somalia to face the many challenges ahead, particularly in the security sector. I would like to echo your remarks, Mr. President, about the role that AMISOM has played in Somalia and the sacrifice it has made, and the progress to date would not have been possible without the success of AMISOM in protecting the political process and in protecting the population. And both AMISOM and Somali security forces have paid a heavy price over the many years. But waa shirkii labaad ee lagu qabto magaalada Muqdisho waxaana shirkan daba socdaa shirkan lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ah wajigii labaad ee lagu qabanayo magaalada Muqdisho waxaana shirkankii ka horeeyay lagu qabtay bishii May ee sanadkii hore dalka Ingiriiska Maxamed Xuseen Ahmed Bulsho TV Muqdisho.